السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكالنت هذه تيري كبرفانو لجنل ولا لها ضمان نوحرن جوجا دنيا دافده هذا قصته ودك دجكا waxaan ogeysiinaynaa in exam Fulbright ay doofan af 19 bishii Abriil inuu baxay ahayd oo berito Jimca arrimo jira darteed dib baa loo dhigay wargelin notice wax la dhahay waa ogeysiin koorsadii tiiriga dib baa loo dhigay waxaana laga dhigay 23 May waqtigii 10 subaxnimo waqtigeeda caadi taleefankii oo macluumaadka inta ku qoran yahay fadlan waa inaad isdiiwaan geliso haddaad isdiiwaan gelin ama aad text message soo dirin kama qayb galayso laakiin buugga tiiriga waa lacag oo diibsanaysaa koorsada laakiin waa free koorsada qaadan doonto waa free insha Allah qaabka waxbarasho waxaan rabaa inaad dul istaago wax yar iskuulada wadanka Dutchka walaalaha marka wax yar waxa aad iskugu dhownahay wadanka Jarmalka iyaga Osbuilding wax saas isticmaalaan baas iskuulka akhtiyaar lagu dhameystaa wadanka Holland wadiba meelkaan ku sharxi doona isagoo design ah Middlebury School hadduu cilmahaaga aadana waa 4 sano waay Hoog School 4 sano aadi doona ama HBO wax loo yaqaano University kana 5 sano waxa meeshaas ku jiro marka Hoog School ka dhaxeeya Middlebury half wax la yiraahdo isagana 5 year intaas hadda isla fahanay marka waxaan rabaa inaan u gudbo koorsadii dib baa loo dhigay inda theory enroll aan sameynaysa ama inscription adresska waa Poster Street 147 magaalada Eindhoven fadlan emailkaas ku soo dir info@sskn.org of telefonka ka horeeyo meeshan saaran text message-kaada ku soo dir WhatsApp-ka soo wicin fadlan dhowr mar ku celina walaalaha qofka qabanaya ma jiro wicitaanka wadanka hore magaalada Eindhoven ka bixi doonta koorsada waa free way bas waxa laga rabaa oo kaliya buugga hadda u baahan tahay waad gadanaysaa hadda u baahan qasab maahay khibrad keeninka qeexi doona waxyaalaha imtixaanka soo galay keenis maxaa la dhahaa si fiican walaalaha u faahfaahin doona insha Allah iyo in siqtiga oo 28 ka kooban imtixaanaadka tiiriga wadanka Dutchka la qaado waa 65 su'aalood waxaad waqti haysataa 8 second tight 8 sakana ama 8 ilbirqsi ama 8 iljibis insha Allah 8 mar marka xirtood furto wax kale oo ku macnay kara malaha imtixaanka koowaad marka hadii aad ku baasto labada imtixaan ugu dhiban waxa way keniska iyo in siqtiga iyaga keniska waxa laga rabaa 10 inaad saxdo kan kalena 25 inaad saxdo haddii isla fahanay marka fadlan waxaan ku celin mar kale adresska meesha soo saaran yahay video hoostiisna soo gelin doona insha Allah fadlan marka haddaad danaynayso meesha doonto joog balqi joog Holland joog waad ka soo qayb gali kartaa kafeega iyo shaaha iyo buskudka waa free koorsada laftirkeedu waa free laakiin waxa laga rabaa kaliya enroll of inscribe wax la dhaho ama isdiiwaan gelin af Soomaali haddaad isdiiwaan gelin fadlan waqtigaas ka dhumin waxaan rabaa inaan wax yar walaalaha su'aalahan dhowr mar ali weyd qaabka waxbarasho wadanka ma dhowr mar ali yiri ma soo faahfaahis waxaan rabaa inaad idin kala qaado wadanka Holland qaabka waxbarashadiisa waa noocan ardayga markuu 4 sano jiro xaq wuxuu leeyahay inuu bilaabi karo iskuulkana qayb xanaan u leeyahay ama kareeshka loo yaqaan laakiin waxa qasab baa 5 sano ilmahaaga ilaa 5 sano guriga iska joogi karaa 5 sano ka weyn guriga ma joogi karo mamnuuc waay 5 sano iskuul waa inuu bilaabo waay laakiin dadka qaar waxay soo biyaan ka horeeyaan fadlan haddaad Soomaali tahay oo hooyo tahay ilmaha kuma taliyo 4 sano inaad ka hor xanaanada geyso haddii duruuf kugu qasbay inuu shaqo ahayn balaastika lacag bixiyo iyo waxaas meel iska soo dhig waxa u jeeda war ilmahan luqadda wuxuu bartaa waqtiga uu yar yahay ilmaha hadda ku ababiso luqadda wadanka inuu barto oo tii af Soomaaliga guriga looga dhaqmayna ku adkaato adaa sabab marka taladan bixina ilmaha xanaanaha iska geyn hadda adiga joogto af Soomaaliga guriga ka bar guriga ku joogo laakiin 4 sano markuu gaaro iskuulkiisa caadiga geey
iskoolada maxay u qaybsamaan marka waxay u qaybsamaan basi school wax la dhaho dugsiga hoose waa soomaaliya dugsi hoose dhaxaa lahaa jiray kan maaha waxaas ya waxaa xaq u leedahay inaad geysato islamic school oo basi school aa jira magaalo kasta ku yaalaa waddanka holland northal uu ku yaalaa southal uu ku yaalaa haddaad doontaa maran inta meel uu ku yaalo waddanka holland idiin soo sheer garayn haddaad danaynaysa haddii 10 kilomitr ka badan uu ku yaalo iskuulka dowladda baska ka bixinayso waa free haddii 10 kilomitr ka yar uu yahayna adigaa geysanayso marka ilmahaaga inaad geysato iskoolka islaamiga maxaa marka uu dheeryaha wuxuu dheeryaha xisooyin diini luqadda carabiga la baraa hingaada la baraa ducooyinkaa la baraa ani la hadlayo 2 maalin ka shaqeeya marka waa talo aan bixinayo maaha inu xayisiis u samaynayo talo aan bixinayo dhulgaala maadaama jooga ilmahaaga diintooda muhiimad gaar ah siiso waa muhiim wadamada kale inta badan ma qabaan ma lahan fursadan ka jirta wadankeena holland wadamo badan baan lahayn dad badanaa laga yaaba ama private inay dhaha ingiriiska waa leeyihin kulle private oo badanyihin laakiin private maaha wasaaradda waxbarashada ee hoos yimaadaan wasaaradda waxbarashada ee hoos yimaadaan dowladda holland ayaa bixisa funding waxyaalaha cajaa'ibkay ka mid tahay soo ma ahan islaaminta iskuulkaas marka wuu jiraa 8 sano ilmahaada waa 8 sano waad gey kartaa ama waxaa jira haddaada geynaynin fadlan oo lagu kari waaya inaad geyso open bar school gey christian school ha geyn waxaan garanayaa ilmo soomaaliyeed hooyadooda hadda kahor isoo wacday ilmahayga iskool christian school ku jiraaye macallin maxaan ka yeelaa aakhiro waa lagu weydiinaya sababto adaaba sabab u noqonaysa diinta christianka lasoo bara marka fadlan open bar school gey xaqa u leedahay kaas maaha waxaan ka hadlaa cunsuriyad waa sharciga waddanka ka jira open bar school a geysan kartaa nimankii hud iskoole leeyihin christianka waa leeyihin kulla wada leeyihin muslimka waa leeyihin waddanka hollandna articalka koowaad waxa waaye diimaha in la tixgeliyo sharciga koowaad article 8 marka muhiimad gaaray noo leedahay ilmahaaga open bar school gey marka intaas kasoo faraxlana marka 8 sano oo ilmahaaga dhiganahay xaguu rajeynaya marka meesha waa meesha qaladaadka ka dhacay fadlan walaalaha soomaaliyeed ku bar cunugaada markuu galaaska afraad ku jiro waxaa laga rabaa luqadda hollandeeska inaad iskool gaar u qabato maadaama adi hollandees ahayd oo soomaali ku hadlayso iyo xisaabta iyo luqadaha qaar ingiliiska haddii la awoodi karo laakiin labadaas aada ugu muhiimsan waxaan sidaas u leeyahy waxaa waay ilmahaaga haddii uu dhibicda maraan ka hadli doonaaye wax lagu magacaabo buundooyinka 6 hadduu ka yar yahay ilmahaaga waxaa loo diri doonaa 4 sano oo VMOB wax la dhahay VMBO sorry b maa ku dara ziyaada VMBO waa Fortbriden Middelburg Basel dugsiga hoose dhexe dugsi hoose ma ahayno dugsiga dhexe ayaa 4 sano buunda la sameeyey oo waqti dhumisa ilmaha Soomaaliya laga keeno oo luqadda aad ugu liidato maaha inaan cunsuriyeynayo ayaa inta badan lagu xaaqaa waalidka kuma baraarugsano sababtoo waalid cusub way luqadda ma yaqaano waa laga hoos bixiyaa wax badan walaalo badan oo dhegeysanaa carruurtooda dhigataa laga yaaba VMBO 4 sano waxaan ku magacaabi karaa khasaaro waqti dhumis waayo cunuga da'diisu way koraysaa marka waxay suubiyeen 8 sano soo qaadatay 4 sano oo VMBO oo buundo bridge la suubiyey 12 sano cunugaada waxbarasho ku jira haye kadib waxaa loo dirayaa falaarta khafiir falaartan waxaa loo dirayaa VMBO Middelburg Bureau baa loo diraa markuu meeshaas ka soo faraxasho VMBO hadduu soo maraba maafi iyo haafi iska ilow ma mari kara cunugaaga shaqa kuma laha kuwaas ya iyo ikhtiyaariitiis tee iyo waxaas shaqa ma ku lahaanayo asa VMBO loo soo dira MBO inuu soo maro 4 sano hadduu fiicnaado oo level fiican qaato waxay bixiyaan iyaga kaadar wax la dhahayo iyo basis ma fahanti iyo khee haddii soo qaato marka waxay siinayaan HBO aadaya 4 sano HBO-ga ardayga ku xiran tahay 2 sano qaar waa ku dhameyn karaan oo hadduu dadaalo laakiin 4 sano meeqa way markaas 12 sano 4 oo Middelburg haddana uu soo maray 16 sano HBO soo maray 20 sano 5 sano waxaa u dhiman jaamacaddu kusii aaday meeshaas laakiin waxa meeshaan ka tegay jaamacadda waxaa ku jira VO wax la dhahay VO Fortbriden waxa waaye
ma fahantay jaamacaddii oo 2 sano hore diyaar garow marka tii HBO hadduu soo maro way ka baxaysaa meesha 5 sano 3 sano u noqonaysaa waxaa laga yaabaa qoraalkan inuu dadka qaar qalad u fahmaan marka wax walba markaad sharxayso inaad faahfaahiso u baahan hadduu HBO soo maro 3 sano jaamacadu maray isku soo duduub saasuu noqon doona xaalkiisa waa cunugii baasqol soo maray oo buundooyinka 6 ka yar haystay oo VBO la soo marsiyay warkii waa la fahanteen Soomaal cunugii ka sareeyay marka 7 wixii ka badan qaatay waxaa loo diri doonaa maafo ama haafo waxay ku xiran tahay hal galaas la fadhiisiinaa iyo tee wax la dhahayo oo MBO ah hal galaasay fadhiisanaya saddexda arday mararka qaar MBO way ka saaraan VBO ka dhigaan inta meesha MBO ku qoray waxay ka dhigaan VBO marba waxay ku xiran tahay iskoolada cunuga markii 5 sano soo dhameysana 5 sano sanadka horeyso waa neck out buug badan baa la soo siinaa sanadkaas waa sanadka ugu muhiimsan in la dadaasho cunuga sanadkaas waxa kikin waa sanadka kala baxa waa ala kulli xal wax kale oo dhihi kara malaha wuxuu baahay cunugaada telefoonadina meel iska dhigtaan iskooladu ku yimaado buugta akhrisan luqad Faransiisa loo soo diraa luqado kale loo soo diraa inuu macallimiin ku caawiyo hesho talo fiican ku siina hadaad macallin heli karin waxaad tagtaa buurta hoosta kuleesh mowduuc ugu dheeraanayo waxa waa sharax badan u baahan yahay buurta hoosta sida laga helaa macallimiin duqoobay dad ah oo macallimiin ahaan jiro shaa iskaga cabay meelahaas community centerada ka helisa kulli arintaas raac ama dadka ururka magaalada gacanta ku hay ama dadka social work ka shaqeeyo badana la kaasho informationada weydii fasalu ala dhikra li dadka wax yaqaan weydii su'aashana waxay daawo u tahay jahliga nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam marka weydii ha cabsanin ha fadhin guriga ilmaha guriga ha ku haynin guriga ha iijo PlayStation ha dheelaadhin ilmaha ga horumari marka haafi maafu sanadka hadduu ka guuleysto marka cunugaada laba nooc noqonaya inuu dorstrom haafa aado oo VBO aado ama tee aado MBO saddexdaas xaaladood noqonaya haddii marka 5 sano soo dhameysto cunugaada waxa u banaan inuu HBO aadi karo oo 2 sano meeshaas mari karo dabcan 4 sano ku qora hadda anig iyo inuu toos u aadi karo calaamada jaalada kheelka fiiriya ama oranjiga iyo jaamacadda toos aad halkaas uu sii maro maadaama VBO uu sii mari doono 5 sano meeshaas ku qaato qaabkaas waa qaabka waxbarashada fadlan haddii intaas ka badan rabtaan faahfaahin ka soo bixi mowduuc ballaaran oo baahan qodob loo dul istaago laakiin mujaamalo waa idiin soo gaabiya aniga wixii su'aal ah comments-ka noogu reeb walaalaha danayna insha Allah waan jecelahay inta ka badan iyadoo faahfaahsan oo buugeeda wadato inaan sii sharxa laakiin waxaan isleeyahay fikir gaaban walaalahaada Soomaaliyeed ee wadanka kula degan kasi si ay uga faa'iideystaan waxaa laga yaabaa dadka cusub inay dhahaan maxaa anaga noogu tala gashay adiga waxa kugu habboon kaliya luqadda imburkanka meel iska saar saacadaha loogu tala galay waqti loogu tala galay dhamay haddii aad saas yeesho lacagta deynta lagu siiyo 10,000 dib uma soo celinaysa haddii kale waa laga rabi doonaa lacagta ogow habeenkii ku soo joog TikTok iyo sheekada iyo Snapchat iskool ha aadin luqadda ha baranin waad ku cusub tahay wadanka maaragtay dhafar ka shaqay caafimaadkaada baabi balwadii shiishad wad adiga cirka roobka oo ka noolaanayso aniga waxaan ahay wacyigelin dhalinyarada waa ka waaninaya habeenii maalin inaad dul fadhiso waxaas haddii aad adiga lacag ka samaynayso okay fine oo nin aqli badan aad tahay oo soo dhaweyn weli oo ku taageeri laakiin haddaad malayacni waxaad ka faa'iiday jirin oo macluumaadka loogu talagalay sidaan oo kale inaad ka daawato wixii update ah inuu saacadood fiiriso ka tagto maahine inaad habeenku kor seexato waa kugu bariyo arrintaas saxdo mararka qaar waxaan soo kaca dad iyagoo live ah haddana live ku jiro arrimaha kale ee dadka ka qayb galaan qolalkan badan oo ka qayb galaysiin doodaha waxba ku tari mayso hadalka badan faa'iido ma laha bal waa dhacaysa dambiye badan baa mutaysanaysa nabigana wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam faliyaqul khayran oo liyasmut riwaayadaha qaar oo liyaskut khayr sheeg ama iska aamus marka intaas waa iga dardaaran waxa laga yaabaa aragti kale inaad qabto fadlan markastaba comments-ka nagula wadaag anaga mar walba waxaan jecelnahay dhiirigelintiina horumarkiina waa horumarkayga mustaqbalkiina waa mustaqbalkayga walaalaha dhammaan waxaad leeyahay waxaad kaga tagay amaana Allah